haddii aad doonayso inuu ku jeclaado saygaaga sameey arrimahan soo socdo alla ka cabso oo wuxuu ku amray oo dhan la imaaw sunnadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam qabso nadaafada gurigaaga aad u ilaali markasta oo ninkaagu imaanayo ha arko meel qurxoon aad isku carfi oo isticmaal barfuuno markasta oo aad ninkaaga la sheekaysanayso ama aad is arkaysaan u naxariiso ninkaaga dharka u dhaq u feeray cunno macaan u sameey jaceylka ayay kordhisaa markasta oo ninkaaga ku baahdo waa in aad diyaar tahay haddii aad jiifto xitaa hurdada ka kac weligaa maya hadhihin cudurdaarna iska ilaali xiriiri ninkaaga qaraabadiisa siiba hooyadii iyo aabihii hadiyad u dir ama lacag markasta oo u dhoola caday ninkaaga farxad u muuji wanaag kula joog ninkaaga oo u muuji dulqaad samir badan mar walbana dhagayso ninkaaga masayrka iska ilaali dadka stress buu ku ridaa guriga ninkaaga ha keenin dumar ilaa uu ka idmo gurigaaga joog oo bixida iyo xaafad galgalka iska ilaali ilmahaaga bar in ay aabahood soo dhaweeyaan kobahana ka siibaan cagahana u tuujiyaan ama u reexreexaan ninkaaga hadiyad u keen sida in aad u soo gado shaati ama barfuun ninkaaga hadduu faqiir yahay wax keen ka ilaali arrinkaas qalbigiisa bay wax u dhimaysaa iska ilaali in aad la keliyoodo niman kale muxrim la'aan ka ilaali ninkaaga wax walba uu necab yahay sida hadalka badan marka uu shaqada ka yimaado markastana ninkaaga aad u dareento in aad qalad ka gashay ama niyadiisa wax u dhimayo aad ku dhahday ka raali geli kana dalbo cafis